السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي ميل بالدنيا كجوكتان وبرنامج كيني عيارها مانتا ونقل سعنيسان جنال كينا بكاري ميديا سبورتس وررك مانتا رسمي زندين زيدان أو سوساري ليسكا أو كغا هور إيمان دونا جلسي ملكيلياشا مان يونايتد أو قوان كأقادي مستقبل كوحدة كدب مظاهرات دي أي تاغيرياشو سميين waqtiga Arsenal ay shaqada ka ceyrin doonto Mikel Arteta. Lionel Messi oo ku sii dhawaanaya rikood uu Diego Maradona dhigay 10 xidig ee khadka dhexe ee ugu fiican Premier League oo la soo saaray gaha ugu fiican Premier League xilli ciyaareedkan oo xog lagu shaaciyay shaxda isku dhafka ah ee Chelsea vs Real Madrid ka hor kulankooda Arbacada shaxda macquulka ah xidigaha seegi doona xidigaha shakiga ku jira iyo wax walba oo aad uga baahan tahay kulanka Man City iyo PSG. Mauricio Pochettino oo ka hadlay xaaladda Kylian Mbappe ka hor kulanka Man City maxaa ka cusub kooxaha koobabka ugu badan ku guuleystay horyaalka Serie A iyo falanqaynta ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Real Madrid. tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa soo saaray liiska xidigaha uu kaga hortagi doono kooxda Chelsea kulan ka tirsan lugta labaad ee semifinalka Champions League. Zidane ayaa liisku ku soo daray xidigaha Sergio Ramos, Ferland Mendy, Marcelo, Federico Valverde kuwaas oo dhamaantood tan buuxa u noqday in ay ka qayb qaataan kulanka. Tababaraha ayaa soo xushay 23 xidig waxaana ka mid ah xidigaha Marcelo kaas oo markii hore laga cabsi qabay in uu seego sabab la xiriira in uu ku qornaa in uu ka shaqeeyo doorasho ka dhacaysa gobolka uu ka degan yahay Madrid. Zidane ayaa liiska ku soo daray 3 xidig oo da'yar ah kuwaas oo kala ah Miguel Cureteza, Anthony Blanco iyo Sergio Arribas kuwaas oo uu ku buuxiyay liiska xidigaha uu qaatay London. Golhayaha Thibaut Courtois, Eder Militao, Sergio Ramos, Nacho Fernandes, Marcelo, Arvala, Odriozola, Ferland Mendy, Miguel Cardoza. khadka dhexe Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Isco, Valverde, Sergio Arribas, Anthony Blanco. weerarka Eden Hazard, Karim Benzema, Marcelo, Asensio, Vinicius Junior, Mariano Diaz, Rodrigo Goes. milkiilayaasha kooxda Man United Declan Rice ayaa diiday in ay iska iibiyaan kooxda inkasta oo ay taageerayaasha kooxdu si weyn uga soo horjeedaan. milkiilayaasha Man United ayaa iska indhatiri doona mudaharaadka taageerayaasha si ay u sii haystaan kooxda sida uu sheegayo wargeyska Guardian. milkiilayaasha kooxda ayaa xitaa qorsheynaya in ay qiimaha ay ku iibinayaan kooxda kor u qaadaan 10 bilyan oo euro si ayna soo bixin koox diyaar u ah in ay iibsato kooxda. talaabadan ayaa imaanaysa kadib markii ay taageerayaasha kooxdu jabsadeen Old Trafford waliba sabab uu noqdeen in ay baajiyaan kulankii ay Man United la ciyaaraysay Liverpool Axadii. laakiin inkastoo ay jiraan mudaharaadyo xoogan ay sameynayaan taageerayaashu haddana milkiilayaasha kooxda ayaa go'aansaday in ay iska iibiyaan kooxda wax walba oo dhaca. waqtiga ay Arsenal shaqada ka ceyrin doonto Mikel Arteta oo la ogaaday. tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa lagu soo waramayaa in uu kaliya haysto 10 kulan oo xilli ciyaareedka dambe ah si uu u badbaadiyo mustaqbalkiisa Arsenal. shabakada Telke Sports ayaa sheegtay in mustaqbalka fog ee Mikel Arteta ee kooxda Arsenal uu shaki weyn ku jiro. Gunners ayaa noqotay kooxda bartamaha kala sareynta Premier League ah halka fursad ee ay ku badbaadin karaan xilli ciyaareedkooda ugana qaybgali karaan tartamada Yurub waa ku guuleysiga Yurub League. xilli ciyaareedkan Arsenal ayaa guul 2-1 ah kala kulantay Villarreal lugtii hore ee semifinalka waxaana ay u badan tahay in ay Man United kaga hortagi doonto finaalka haddii ay dhaafaan Villarreal. ilo wareegyo ku dhow kooxda ayaa sheegaya in ay maamulka Arsenal tababare Mikel Arteta siin doonto fursad uu kaga hormariyo kooxda waliba ay suuqa xagaaga ku taageeri doonaan. laakiin haddii uu natiijooyin fiican heli waayo 10 kulan ee ugu horeeya horyaalka xilli ciyaareedka dambe waxa uu waayi doonaa shaqadiisa. Lionel Messi oo ku sii dhawaanaya rikoor uu Diego Maradona dhigay
laadkii xorta ahaa ee Lionel Messi ka dhaliyay Valencia axadii ayaa ahayd midkii kontonaad ee uu dhaliyay kooxda Barcelona kadib markii uu kubad dhex dhigay goolka uu ilaalinayay goolhaye Jasper Cillizane. Xidiga reer Argentine ayaa sidaas ku dhaliyay guud ahaan 56 laad oo xor ah marka la isku daro kooxda iyo xulka qarankiisa Argentine, waxaana uu ku dhow yahay in uu barbareeyo rikoorka laadka xorta ahaa ee uu dhigay halyeyga Diego Maradona. Halyeyga Diego Maradona ayaa dhaliyay 59 oo laad xor ah xirfadiisa ciyaareed inta uu ciyaaray kubadda cagta, taas oo la macno ah in uu Leo Messi uu baahan yahay kaliya 9 gool oo laad xor ah. xidiga kooxda Barcelona ee Messi ayaa haatan ba dhaafay Manuel Pellegrini kaas oo dhaliyay 45 laad xor ah iyo Dani Passarella oo dhaliyay 43 laad xor ah. Toddobaadka dambe Leo Messi ayaa ka hortagi doona Atletico Madrid oo ah kooxda uu ka dhaliyay laadkiisii xorta ahaa ee ugu horeeyay intii uu Barcelona u ciyaarayay. xidiga 32 jirka ah ayaa dhaliyay laadkiisii xorta ahaa ee ugu horeeyay bishii Oktoobar 2008 kulankaas oo ay Barcelona ku badisay 6-1. Manka xidig ee khadka dhexe ee ugu fiican xil ciyaareedkan waxaa dhammaan ku sii dhawaanaya xil ciyaareedka Premier League iyada oo 4 kulan oo kaliya ka dhiman tahay dhamaadka xil ciyaareedka horyaalka 2021-2022. waxaa la soo ciyaaray Premier League muddo bilo ah, waxaana jira xidigo soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah tan ilaa markii uu bilowday xil ciyaareedkan. xidigahaas ayaa kooxda ka caawiyay in ay gaaraan guulo muhiim ah, weliba door weyn ka qaatay booska ay kooxahooda haatan kaga jiraan horyaalka Premier League. marka laga hadlayo kubadda cagta waqti xaadirkan waxa ugu muhiimsan khadka dhexe marka loo eego in booskaas mishiin u yahay koox waliba ay tahay booska ay ka dhaqaaqdo koox walba. marka la dooranayo xidiga dhowr ah waxaa dhacaysa mar walba in laga tago xidigo kuwaas oo si fiican u ciyaaray laakiin qaab ciyaareedkooda uu qarsoon yahay sababo kala duwan dartood. wargeyska Daily Mirror ayaa soo saaray liiska 10 xidig ee khadka dhexe ah ee ugu fiican horyaalka Premier League xil ciyaareedkan. 1. Bruno Fernandes. 2. Kevin De Bruyne. 3. Yuri Tielemans. 4. Mason Mount. 5. Ilkay Gundogan. 6. Thomas Tuchel. 7. Pierre-Emerick Aubameyang. 8. Declan Rice. 9. Yves Bissouma. 10. Rodri. waxaa haatan la soo saaray shaxda isku dhafka ah ee Chelsea iyo Real Madrid ka hor kulankooda Arbacada. taageerayaasha kubadda cagta ayaa isha ku haya kulan adag oo dhexmari doona kooxaha Chelsea iyo Real Madrid kana tirsan lugta labaad ee semifinalka tartanka Champions League kaas oo dhici doona Arbacada. labada kooxood ayaa wax waliba oo ay hayaan la soo gali doona garoonka maadaama ayna weli kooxna xaqiiqsan booskooda finaalka ee Champions League kadib markii ay barbaro ku kala baxeen kulankii lugtii hore. labada kooxood ayaa kulankaas soo galaya iyaga oo kalsooni buuxa kadib markii ay soo kala badiyeen labadii kulan ee horyaalkooda, waxaana ay kulankan u soo gali doonaan iyaga oo isha ku haya finaalka. kooxaha Los Blancos iyo Blues ayaa ku hubeysan qaar ka mid ah xidigaha ugu fiican adduunka, waxaana ay shaki la'aan soo bandhigi doonaan tayadooda iyo awoodooda kulanka Arbacada. shabakada Sport Mall ayaa soo saartay shaxda isku dhafka ah ee labada kooxood ka hor kulanka Arbacada iyaga oo adeegsaday kaliya xidigaha taamka u ah kulanka. kooxda Chelsea ayaa shaxda ku leh xidigaha ugu badan iyaga oo ku helay 6 xidig halka ay Real Madrid kaliya ku leedahay 5 xidig. shaxda isku dhafka ah ee labada kooxood ka hor kulankooda. weerarka Karim Benzema aan ku bilaabay weerarka Karim Benzema, Mason Mount, Pulisic. dhaxda Kroos, Casemiro, Kante. garbaha difaaca Chilwell, Azpilicueta. difaaca dhexe Thiago Silva, Sergio Ramos. goolahaye Thibaut Courtois. waxaa intaas inoogu eg asxaabi barnaamijkeena ciyaaraha ee maanta. meel walba dunida ka joogtaan, Ramadaan Kariim, Ramadaan Mubaarak. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.